shacabka maanta marka waxa laga rabo waxa waaye intii hore ahayd in mar walbaba erayada qofka nasaqraamiso ama na hurdisiiso taas inaan ka korno oo mar walbana aan isweydiino shakhsiga hadlaayo iyo erayada uu leeyahay iyo camalkiisa ma iswaafaqsan yihiin hadday jawaabta haa tahayna qofkaas hala taageero oo lagu taageero camalkiisa asiga ilaahay ka dhaxaysaa wixii warkiisa ku jiray iyo wuxuu qalbiga ku qarsanay laakiin marba hadday isdiidayaan labadii shay dan waxaan mas'uul anaga nasaaran waajibka nasaaran waxa waa inaan qofkaas ku diidno inaan ku saacidin meesha uu noo wada iyo waxa uu noo wada Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay dib u heshiisiin dhab ay u baahan tahay waxa kale ay u baahan tahay in si daacadnimo ah walaaltinimo looga hadlo dadkan meesha joogan idin sheegay oo ku bilaabay warkayga reer xalana baan dhahno in ay yihiin dad annaga maslaxadeena ka talinayo ama dadaanan ka talinayn lanana madaxteena inay la yimaadaan waaye kartidii iyo raganimadii adduunka loogu sheegi lahaa in arrintan aysan maslaxa u ahayn Soomaaliya goobo oo waxa jira loogaga hadlo sida UN-to kaleeto AU-do kaleeto iyo meelaha kaleeto ma taqaanaa ama qoraayaasha inay kacaan dadka suugaanta inay kacaan in adduunkii lala socodsiiyay inaan raalli ka ahayn dadka qaarkiis oo meeshaas degan because mashaakilkii ka mid yihiin danahooda gaarka ay raadsanayaan meesha u joogaan maslaxadooda gaarka taadina cid ka shaqeynaysa malaha marka walaalayaal aan noqono dad fikiro ilaahay ka cabsado xaqna ka hadlo run ahaantii waxaan noqonay dad in looga xaqa astaamihiisa 30 sano lagu soo jiraa dhibaatadaani bariga Soomaaliya inay toos isku disho bilowday oo siyaasadii wax kale isku qabsadaan maantana waxa moodaa xoogaa inaan la hilmaamnay astaamihii xaqeena hilmaamnay ilaahay naga dhigo ku baraarugo insha Allah ta'ala oo xaqa si toos uga hadlo walaalaheena waa u duceeynaa